war degdeg ah dowladda Kenya oo ku dhawaaqday inay shidaal ay ka qodanayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya haddaba maxay tahay talaabada ay qaadi doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama Kenya ay ka soo yeertay hanjabaad cusub isla markaana si xoog ah ay rabto inay ku qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya muuqaalkan ayaa idinkugu soo gudbin doona xogihii u dambeeyay arrimahaas la xiriira maxaad kala socotaa xilliga la qodayo shidaalka Soomaaliya iyadoo markabkii uu qodi lahaa shidaalkaasi uu ka soo ambabaxay dalka Turkiga sagootina loo soo sameeyay goorme ayaa lagu wadaa inuu soo gaaro dekedda caasimadda Muqdisho muuqaalkan ayaa idinkugu soo gudbin doona xogahaas oo dhameystiran haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkan fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saarsi oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada waa markabkii qodi lahaa ee shidaalka Soomaaliya oo maanta laga soo sagootiyay dalka Turkiga iyadoo horey Soomaaliya uu u soo gaaray markab hore kaasi oo ahaa mid ka sahminaya shidaalka maadaama shidaalkii la sahmiyay markan Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa qodista shidaalka iyadoona markabkan uu yahay markabkii ugu dambeeyay oo ay soo saartay dalka Turkiga isla markaana loo soo dirayo Soomaaliya si uu u qodo shidaalka Soomaaliya markaan waxa la sheegay inay ka baxayso faqrinimada isla markaana ay noqonayso dal hantiile waxaana lagu wadaa in markabkan uu soo gaaro maalmaha soo aadan si uu u bilaabo qodista shidaalka iyadoo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isku diyaarinayaan soo dhaweynta markabkani iyadoona dowladda Turkiga ay u sameysay munaasabad lagu soo sagootinayay markabkani sida uu shaaciyay amaba muuqaal uu ku baahiyay wasiirka tamarta ee dalkaasi Turkiga waxa uu sheegay in maanta markabkii qodi lahaa shidaalka laga soo sagootiyay dalka Turkiga isla markaana uu u soo ambabaxay Soomaaliya si uu ugu bilaabo howlgalka qodista ee shidaalka dabiiciga ah markabkan ayaa maanta ka soo dhaqaaqay dekedda weyn ee dalkaasi Turkiga iyadoona lagu wado inuu soo gaaro maalmaha soo aadan dekedda caasimadda ee Muqdisho waxaana uu ka mid yahay maraakiibta ugu casrisan ee dalka Turkiga laga leeyahay waxaana loogu talagalay in uu horseedo bilowga qodista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee Soomaaliya talaabadan ayaa loo arkaa marxalad adag amaba Soomaaliya ay horey ugu sii dhaqaaqayso maadaama dalkeeda laga qodayo shidaal iyo sidoo kale gaas dabiici ah gaar ahaan dhinacyada tamarta amniga iyo sidoo kale horumarka waara ayaa loo saadaalinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku sii talaabsanayso markabkan ayaa la filayaa inuu dhawaan soo gaaro magaalada caasimadda ee Muqdisho si loo qorsheeyo xafladda rasmiga ah ee markabkan lagu soo dhaweynayo waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in markabkan marka uu soo gaaro toddobaadkiina soo aadan uu si toos ah u bilaabi doono qorshaha qodista shidaalka sida balantu ay ahaydba iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay isku sii diyaarinayso soo dhaweynta markabkani iyo sidoo kale ambaqaadka sidii shidaalkan loo qodi lahaa iyadoo horey Soomaaliya uu u soo gaaray markabkii sahminta shidaalka waxaan hal mar isla daawanaynaa muuqaal yar sidii markabkaasi loo soo dhaweeyay iyo sidoo kale sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu faraxsaneed soo dhaweynta markabkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbad uu jeediyay ayaa hal mar isla si xasuusin ah u daawan doona waxaana u laaban doona war kala yaab kale ee ka soo yeeray dowladda Kenya ee ku dhawaaqday in qayb ka mid ah badda Soomaaliya ay ka qodan doonto shidaal waxaa la joogaa waqtigii haddana dadka Soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo awood ahaan loo soo dhisi lahaa ayada oo maanta Soomaaliya haddana la leeyahay ma la tegi karaa ma la maal geli karaa maxaan ku raadaay ma la waxay karaa ayaa haddana walaalaheen dowladda iyo shacabka Turkiga iyo madaxweyne Erdogan ay haddana go'aan kale oo taariikhi ay gaareen oo Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha heshiiskaas qayb ka mid ah waaye maanta waxaan u taaganahay markabkan casriga gadaasheena taagan oo u taagan yahay maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraado war heedhahay Soomaaliya waa la maal gasho karaa war meesha waa wanaaga ka jira war waa dhaqaalaha ka jira war fursada ka jirta la yiraahdo haddana laana markabkan inuu meesha soo istaago ma ahayn wax iska yimiday ma ahayn markab container wado ama maxaan ku raadayay shamiinta iyo maxaan ku raad bariis wada ma ahayn markab casri ah technology aad iyo aad u sareeya
qiimihiisa aanan la soo koobi karin waaye waxaa la socda khubaro dadkii ugu maskaxda fiicnaa ugu aqoonta badnaa meeshaas marka la yidhaahdo ee dalka turkiya uu lahaa ayaa la socda waxaa la socda maraakiib aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah oo maxaanku idhahda ciidamada badda ee turkiya ay leeyihiin oo sida heshiiska ku caddeeda qayb ka ah marka waxaad dareemaysaa mar kale soomaaliya in dib loo soo mililacay waxaana rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego waayahan damboo dhan saddexdii usbuuc oo markabkan uu soo socday iyo usbuucyadii ka horreeyey oo heshiiska wixii ka dambeeyey soomaaliya danayn badan in la soo wada aadayay su'aalo badan maxaan qaban karnaa maxaan idinla qabsan karnaa maxaa haysaanoo fursado ah maxaanku idhahday ka wada faa'idi karnaa su'aalahaasoo dhamme in hadda muxuu ahay nala weydiinayo waxay daliil u tahay in mar kale adduunyadii ay dib noogu soo jeesatay oo ayna soo eegayso waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanaan beerdaraynin fursadahaasi sida keliya ee ugu habboon shabaab nagama hor istaagi karo cadow kaloo ajnebi a nagama hor istaagi karo hal shay bas ayaan u baahannahay inaan la nimaado waa maxay dawlad wanaag iyo dawlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wadato oo ay maxaanku idhahdaa darfaha xajarul aswadkii rasuulka calayh isalaatu wassalaam maxaanku idhahdaa iyadoo laysku haysto uu yidhi qabta marada darfaha inay dadka soomaaliyeed ka wada qabtaan dawladnimada oo aan dawladnimadeenna xoojinno waaye haddaanan dawlad xoog la haysanin annaan helin oo sharciyad xoog la leh oo dadka soomaaliyeed raalli ka yihiin oo dadka soomaaliyeed is-aqbaleen isu dulqaateen ee hore u socdaan haddaanan la imaanin ma ka faa'iidayno fursadaha ay caalamka uuna siinayo oo middan walaalaheen turkiya ayna siiyeen ay uga hormarto sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ku booriyo waa fiicannahay dalkannagu waa fiican yahay khayraad badanaan haysannaa wanaag badanaan leennahay meesha dalkeenna uu ku yaallaa muhiim ah walaalo fiican oo na garab istaagaya iyo saaxiibbo fiican ayaan caalamka ku leennahay soomaaliyey annagu aan iska kacno annagaa isku fadhinno annagu aan iska kacno adduunyada siday u nooshahay aan u noolaanno adduunyadu sida ay dawlad u leedahay aan u yeelanno ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno waa nalooga horreeyey qarniyaalaa nalooga horreeyey khibrad badanaa adduunku leehay waa aragnaa dadka batroolka soo saaray ee ka faa'iiday siday uga faa'iideen waa aragnaa kuwa ka faa'idi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey ee maxaanku idhaha dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leennahay annagayna jirtaa inaan batroolkeenna horumarka wanaagga sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda waddan casri ah nolol casri ah dad maxaanku idhaha qudrad leh inaan ku maal gashanno wixii aan ka helno khayraadkeenna iyo inaan xabado iyo madaafiicna looga iibsado oo aan annaga isku laayno lacagtuna ninka xabadaha naga iibiyey aado labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa midda saxda ah oo ah khayrka ilaahayna siiyey intaan ilaahay uga mahad celinno inaan ummaddeennana waxa ay mudan yihiin iyo nolosha ay mudan yihiin iyo haybadda iyo karaamada ay mudan yihiin inaan ku siino ay ku helaan waayo waddada saxdaa inaan marno ilaayo hadda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u mahad celiyo bogaadiyo meesha ay mashruucan iyo heshiiskan ay ka istaageenba haddii aan ka soo laabano khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu jeediyey markii uu markabka sahminta shidaalka ee ka soo ambabaxay turkiga uu soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayuu ahaa muuqaalkani markana xiisadda dowladda Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa u muuqata mid cirka isku sii shareerayso kadib markii dowladda Kenya ay si cad ah ay u sheegatay inay leedahay blockiska shidaalka ee L5, L6 iyo L22 oo ku yaala dhulbadeedka ay Soomaaliya u aqoonsan tahay mid ka tirsan xuduudaha badeed. Arrintan ayaa timid iyadoo dhowr sano ka hor dowladda Kenya ay muran ay gelisay qayb ka mid ah badda Soomaaliya
iyadoona murankaasi in muddo ah uu socday iyadoona khilaafka dowladda Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya uu noqday mid cirka isku sii shareeray isla markaana xiriirka la isku jaray xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona markaasi la isla gaaray maxkamadda ugu sareysay adduunka ee ICJ iyadoona ay markaasi ay soo xugmisay in badda ay leedahay dowladda Soomaaliya balse Kenya ay doonaysay xilligaasi inay xoog ay ku qaadato arintaasi markay dhacday kadib xiisadu waa ay degtay haddana waa ay soo laba kacleysay dowladda Kenya waxay leedahay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ayaan leeyahay oo shidaal ayaan ka qodanaya haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya maxay tahay talaabada ay qaadi doonto oo laga sugayo maadaama Kenya ay sheeganayso in shidaal ay ka qodanayso ee qayb ka mid ah badda Soomaaliya arintan ayaa mar kale waxay u muuqataa in cirka isku sii shareerayso khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ee dowladda Kenya iyadoona arintan ay noqotay mid xiisad gaar ah xambaarsan hadalka ka soo yeeray dowladda Kenya ayaa yimid kadib markii ay lagu dhawaaqay in markabkii qodi lahaa shidaalka ee dalka Turkiga uu ka soo ambabaxay isla markaana uu soo gaaray amaba uu soo gaari rabo magaalada Muqdisho si uu u ambaqaado qodista shidaalkani wixii xogo ay ku soo kordhay talaabada ay qaadi doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya muuqaaladana xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeenana subscribe inoo dhigam balelkan furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saar si uu gaar asxaab badan oo